bismillaahi raxmaani raxiim kulanti habboon daawadayaashana qiimaha badan kusoo dhawaada barnaamijkani falaqaynta dunida qodobada barnaamijkan aan ku soo qaadan doono isla markaana aan ku lafaguri doono waxaa ka mid noqonaya haddii Rabbi subxaanahu wa ta'aala uu qadaro Iran waxay soo bandhigtay heshiis ku saabsan marinka Hormuz iyadoo aan lagu darin wadahadalada nuclearka dhanka kale waxaa soo baxaya nin lagu soo oogay dacwad la xiriira isku day dil oo ka dhan ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kadib rasaas ka dhacday xafladii wariyaasha aqalka cad ee uu kula yeelanayay sidoo kale inta aan tabinteena ku guda jirno waxaad ku daawan doontaan Donald Trump oo isagana dib u eegaya soo jeedinta Iran ee lagu doonayo in dib loo furo marin biyoodka Hormuz qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadan doonaa inta aan ku guda jirno tabinteena balse inta aan u guda galin qodobadaas faahfaahintooda marka hore waxaan ka codsanayaa muuqaalka like inaad noo saarto aad la wadaagto asxaabtaada si muuqaalka meel dheer u gaaro haddii se aad nagu cusub tahayna fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto oo channelka subscribe noo dhahdid isla markaana gambalaalka afuratid si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiga magacayguna waa Hashim Adam halkani waa channelkeena Hoggaan Media ku soo dhawaada mar kale iyo tabinteena hagaag mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan haddii aan ku horeyno qodobkeena koowaad nin lagu soo oogay dacwad la xiriirta isku day dil oo lala beegsaday Trump kadib rasaas ka dhacday cashadii ururka wariyaasha aqalka cad uu kula lahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ninkan ayaa mas'uuliyiintu ay sheegeen in uu isku dayay in uu hub iyo mindiyo la galo xafladda cashada ee White House Correspondents Association ayaa isniintii lagu soo oogay dacwad federaal ah oo la xiriirta isku day dil oo ka dhan ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump geesta kale saraakiisha federaalka ayaa tilmaamay in weerarka lagu qalqalgeliyay mid ka mid ah munaasabadaha ugu caansan ee ka dhacda had iyo jeer magaalada Washington DC u muuqdo mid la qorsheeyay ugu yaraan dhowr toddobaad ka hor ninka lagu tuhunsan yahay oo lagu magacaabo Cole Thomas Allen ayaa ka soo muuqday maxkamadda si uu ugu jawaabo eedeymaha federaalka kadib dhacdadii foodada lahayd ee Sabtidii dhacday dhacdadaas waxay sababtay in rasaas la isweydaarsado Trumpna si degdeg ah ayaa loogu dajiyay masraxa isagoo aan wax dhaawac ah gaarin halka martidii xafladuna ay hoos ama miisaska hoostooda ay ku dhunteen si ay ugu badbaadaan rasaasta halkaas ka dhacaysay maxkamaddu waxay amartay baa la yiri in Allen xabsiga lagu sii haayo ilaa iyo dhageysiga kale ee maxkamadda oo la qabto waxaana uu wajahayaa baa la yiri xabsi daa'in haddii lagu helo dambiga isku dayga dilka ah oo kaliya warqad dheer oo ay soo gudbiyeen federaalka ama FBI-da ayaa isniintii maxkamadda la hordhigay waxayna ka warbixisay faahfaahino dheeraad ah oo ku saabsan sida weerarka loo qorsheeyay mas'uuliyiintuna waxay ku eedeeyeen Allen in 6 Abriil uu qabsaday qol ka mid ah hotelka Washington ee lagu qaban lahaa munaasabadda toddobaadyo kadib inkastoo baa la yiri goobtaasi ay mar walba leedahay ammaano aad u adag toddobaadkii hore ayuu tareen kaga soo safray gobolka California ilaa iyo Washington isagoo isku diiwaangeliyay hotelka Washington Hilton hal maalin ka hor cashada isagoo qolka sii qabsaday dhamaadka toddobaadka mas'uuliyiintu waxay sheegeen in cashadu ay weli bilow ahayd markii ninka 30 jirka ahaa ee ka soo jeeday magaalada Torrance ee uu isku dayay in uu si degdeg ah ugu gudbo xayndaabka amniga oo u dhow hool weyn oo ay ku sugnaayeen boqolaal wariyaal iyo martidooda taas ayaa dhalisay baa la yiri isweedaaraysi rasaas oo dhexmaray isaga iyo askarta Mareykanka gaar ahaan Secret Service-ka ee loo xilsaaray ilaalinta munaasabadda mas'uuliyiintu waxay sheegeen in Allen uu watay qori lagu magacaabo 12 gauge bomb action shotgun oo uu iibsaday baa la yiri sanadkii hore iyo bastoolad 38 caliber semi automatic ah oo uu soo iibsaday sanadkii 2023 haddaba kusimaha xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Todd Blanche ayaa shir jiraa'id ku sheegay rabshaduhu meel kuma lahan nolosha madaniga ah buu yiri loomana adeegsan karo in lagu carqaladeeyo hay'adaha dimuqraadiyadda ama lagu cabsi geliyo kuwa u adeegaya bulshada waxaana hubaal ah buu yiri inaanu loo adeegsan karin in lagu weeraro
madaxweynaha Mareykanka. Wuxuu intaasi ku daray arintan si buuxda ayaan u baaraynaa, sharciga si cadaalad ahna ayaan u dabaqi doonaa buu yiri. Waxaana hubin doonaa buu yiri in isla xisaabtanku uu noqdo mid degdeg ah oo cad. Allen ayaa dhaawacmay intii uu weerarka socday balse lama toogan. hal sarkaal oo ka tirsan ciidamada ilaalada madaxweynaha ama munaasabada ayaa la toogtay. hase yeeshee wuxuu xirnaa jaakad ka hortagta rasaasta, sidaas darteedna uu ka badbaaday baa la yiri. si kastaba ha ahaatee weli su'aalo ayaa ka taagan tirada rasaasta Allen riday iyo inta askartu ay rideen. Balanjo wuxuu sheegay in baarayaashu ay aaminsan yihiin in mid ka mid ah saraakiisha Secret Service-ka ama ilaalada munaasabada ay uu riday 5 xabadood halka Allen ugu yaraan hal mar uu riday qorigiisa. si kastaba Balanjo ma uusan cadeynin in la xaqiijiyay in xabada ku dhacday jaakada sarkaalka ay ka timid Allen iyo in askar kale ay hubkooda isticmaaleen. khubarada baarista rasaasta ayaa weli baaraya baa la yiri cadeymaha si ay arintan u cadeeyaan. Mareykanka gaar ahaan Department of Justice ama qaybta cadaaladda ayaa sidoo kale Allen uu ku soo oogtay 2 dacwadood oo kale oo la xiriira hubka. mid ka mid ahna waa in uu hub riday baa la yiri intii lagu guda jiray fal rabshado wata. si kastaba ahaatee warqadda dhaarta ah in si cad uma sheegin in Allen uu ahaa qofka toogtay sarkaalka. dhanka kale email uu diray tuhmanaha oo iftiiminaya sababta weerarka rasaastan ay sababtay in gabi ahaanba la baajiyo cashadii wariyaasha aqalka cad, taas oo noqotay baa la yiri cashadii ugu horeysay uu Trump ka qayb galo isaga oo madaxweyne ah. afayeenka aqalka cad Caroline Leavitt ayaa isniintii sheegtay baa la yiri in habeenkaasi la filayay in uu noqdo mid farxad leh balse uu qabsaday qof waalan oo si adag ah ugu soo horjeeday Trump baa la yiri, kaas oo dalka oo dhan ka soo safray si uu u dilo madaxweynaha iyo inta badan mas'uuliyiinta dawladdiisa. Allen markii la xiray wuxuu adeegsaday xuquuqdiisa dastuuriga ah in uu aamusnaado. si kastaba ahaatee mas'uuliyiintu waxay sheegeen in email uu diray xubno qoyskiisa ka mid ah uu u diray iyo shaqaale horey ula shaqeyn jiray, waxaana uu iftiimiyay sababta weerarka. fariintaasi uu ku sheegay nuqul ka mid ah oo lagu daray warqadda dhaarta. Allen wuxuu isku magacaabay friendly federal assassin, dilaa federaal ah oo saaxiibtinimo leh, wuxuuna si dadban ugu hadlay cabashooyin uu ka qabo tallaabooyinka kala duwan ay qaaday dawladda Trump ama dawladda Trump. iminka qoraalka emailka oo aad u kala daadsanaa wuxuu u dhaxeeyay qirasho, cabasho iyo macsalaameyn, wuxuuna raaligelin u diray baa la yiri qoyskiisa, asxaabtiisa shaqada iyo xitaa dad aanu garanaynin oo laga yaabo in rabshaduhu ay ku waxyeeloobaan, isagoo isla mar ahaantana isku dayay in uu sharaxo sababta weerarka. Garsooraha maxkamadeed ayaa aqbalay codsi ka yimid dacwad oogayaasha si Allen xabsiga loogu sii hayo inta laga gaarayo dhageysiga kale. dhageysiga ku saabsan sii haynta xabsiga ayaa loo mudeeyay Khamiista soo socota. Allen si dheer uguma hadlin maxkamadda inta uu hortaagnaa sida caadiga ah ee kiisaska noocan ah. mid ka mid ah qareenadiisa Taser Abe ayaa sheegtay in Allen uusan lahayn wax diiwaan dambi ah, waxayna tiri waqti xaadirkan weli waxaa loo arkaa qof aan wax dambi ah lagu helin. hagaag qodobkaas halkaas ayaan ugu gudbaynaa. haddii aan fiirino qodobkana xiga, Iran waxay soo bandhigtay ama ay soo jeedisay heshiis ku saabsan marinka Hormuz iyadoo dib loo dhigayo wadahadalada nukliyeerka. haddaba wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa la kulmay baa la yiri madax iyo wakiilo ka socda dalal badan oo gobolka si uu la hadlo qorshe cusub oo lagu gol leeyahay in dib loo furo marinka muhiimka ah ee Strait of Hormuz. haddaba qorshahani wuxuu soo jeedinayaa baa la yiri in arintan marinka Hormuz iyo ammaankiisa si gaar ah loogu heshiiyo, halka wadahadalada ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ahna ay Tehran dib loogu dhigo marxalad dambe. dadaaladan diblomaasiyadeed ayaa ku yimid baa la yiri socdaal degdeg ah oo uu socday 72 saacadood oo Araghchi ku marayay 3 dal, iyadoo ujeedadeeduna ay u muuqato in la helo
taageero ballaaran oo caalami ah si qorshahan loo dhaqangeliyo. Sidoo kale Araghchi wuxuu magaalada Petersburg kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Kulankaasi ayaa yimid kadib 2 safar oo isku xiga oo uu ku tagay magaalada Islamabad 2 maalmood gudahood baa la yiri. Safaradaas oo u dhaxeeya kulan kale oo ka dhacay Muscat ee Oman iyo ilo ku dhow dadaalada diblomaasiyadeed ayaa u sheegay Al Jazeera in kulanka Muscat ay joogeen saraakiil sirdoon oo sarsare oo ka kala socday dhowr dal. Wadahadalada Muscat ayaa diiradda lagu saaray baa la yiri marinka Hormuz, damaanad qaadida ammaanka gobolka iyo qaab dhismeedka heshiiska suurtagalka ah. Arrimaha la xiriira nuclearka ayaa si ula kac ah looga dhigay kuwa dib loo eegayo marxalad dambe. Iran waxay soo gudbisay baa la yiri soo jeedintii ugu dambeysay ee lagu joojinayo dagaalka kala dhaxeeya Mareykanka iyada oo u mareysa Pakistan, taas oo hadda fariimaha u kala gudbinaya Tehran iyo Washington DC. Wadahadalo toos ah oo 11 Abriil ka dhacay Islamabad ayaa horey u fashilmay iyaga oo aan wax horumar ah keenin. Haddii aan eegno qodobkeena ugu dambeeya oo ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo kooxdiisa ammaanka qaranka ayaa dib u eegis ku sameynaya soo jeedin ay Iran soo gudbisay, taas oo ujeedadeedu ay tahay in la joojiyo dagaalka ay si wadajir ah ula galeen Israa'iil, dibna loo furo maranbiyoodka istiraatiijiga Strait of Hormuz, isla markaana dib loo dhigo wadahadalada ku saabsan barnaamijka nuclearka ee Tehran ilaa iyo dagaalka uu dhamaado. Aqalka Cad ayaa xaqiijiyay in Trump uu Isniintii la kulmay la taliyaashiisa ammaanka qaranka si ay ugu hadlaan baa la yiri qorshahan. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in Trump uusan ku qanacsaneyn soo jeedintaas sababtoo ah waxay dib u dhigaysaa baa la yiri wadaxaajoodyo la xiriira howlaha nuclearka Iran. Haddaba wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sarkaal xog ogaal u ahaa kulanka ayaa sheegtay in Trump uu doonayo in arrintan nuclearka laga hadlo bilowga wadaxaajoodyada halkii dib loo dhigi lahaa. Dhanka kale CNN ayaa iyadana soo xiganaysa 2 ilo oo arrintan la socda oo sheegtay in Trump uu u badan tahay inuusan aqbali doonin qorshahan. Warbixintu waxay tilmaantay in haddii Mareykanka uu qaado xayiraadda uu saaray dekada Iran ama dekadaha Iran iyadoo aan la xalin walwalka la xiriira barnaamijka nuclearka ee Tehran, ay taasi weeqi karto baa la yiri awoodda cadaadiska ee Washington. Haddaba soo jeedintan waxay timid iyadoo weli mugdi ku jiro xaaladda maraakiibta ka gudbaysa Strait of Hormuz. Madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in Tehran aysan gali doonin wax wadaxaajood ah inta Mareykanka uu sii wado xayiraadaha uu saaray dekadaha Iran. Washington iyo Tehran waxay 8 Abriil ku heshiiyeen xabad joojin ku meel gaar ah kadib in ka badan 1 bil oo dagaal socday. Dagaalkaas wuxuu bilaabmay markii Mareykanka iyo Israa'iil ay si wadajir ah weeraro ay ugu qaadeen Iran. Xabad joojintaas oo dhexdhexaadisay Pakistan ayaa hadda wajahday caqabado gaar ahaan muranka ka taagan isu socodka maraakiibta Strait of Hormuz iyo talaabooyinka Mareykanka uu ku bartilmaamsaday dekadaha Iran. Halkaas ayaan ku soo koobaynaa. Haddii aad nala socotay dhab ahaantii waan kaaga mahadcelinaynaa la socoshada iyo daawashada muuqaalkayaga. Fadlan la wadaag asxaabtaada oo fikirkaaga qaybta hoose noogu reeb ee faallooyinka. Tan iyo tabintan xigtaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo amaana Allah.